بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob waxa ugu horeyn doona insha Allah taala qodobka ku saabsan qaraxii shalay loo geystay gudoomiyihii gobolka Mudug mudane Axmed Muuse Nuur oo ahaa haliyey gobolka Mudug u soo halgamay karaamo iyo cizi iyo sharafna ku lahaa guud ahaan Puntland iyo Soomaaliya kaasoo shalayto ay dileen ama qarxiyeen kooxda al-arxamulayaasha oo najaasada ah oo dadku ay u yaqaanaan al-shabaab laakiin al-shabaab waxa weeye waa dhalinyarada fiican baa laakiin iyagu waa al-shaydaan waa kuwa aan xishoon waa kuwa aan rabbi iyo rasuul toona aqoonin waa kuwa diinta ilaahay ka been sheegay wax uu galabsaday ma uusan jirin waxa loo dilay maxaad ummadaada ugu shaqaynaysaa maxaa ku raada runta uga hadlaysaa maxaad gobolka Mudug amnigiisa uga shaqaynaysaa waxa ay la xanaaqeen waxa weeye kooxdii iyaga ka tirsaneedoo dhigi cabka ahayd oo magaalada Gaalkacyo dhawaan lagu qabtay oo ciidanka booliska Puntland gaar ahaan gobolka Mudug oo sida fiican uga shaqaystay guryaha loogu daatay daalimiinta ah taas oo ugu hambalyeeyo taliyaha ciidanka booliska taliyaha qaybta gobolka Mudug Muumin gaashaanla sare Muumin oo runtii isagu ah nin haliyey u soo baxay gobolka Mudug horena ay wax uga qaban waayeen saraakiishii isaga ka horeysay laakiin isagu ku guuleystay inuu shabaab meel kaga soo haro hawlgalkaasoo muddo dambe sii socon doona isla markaas aan sadhici doonin in wixii shalay dhacay marnaba uu naafeeyo barnaamijkaas oo la rabo mar walba natiijada ugu dambaysa in laga gaaro waayo kooxdan waa koox xun waa koox yara waa koox najaasa ilaahay cadaabtiisa ugu talagalay waa kooxdii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yiri halala dagaalamo waa kuwii lagu shahiido ayagu shahiid ma ahan waxa shahiida midka ay dilaan iyo midka iyaga dila ayaa shahiida laakiin iyagu waa daalimiin sababtoo diinta ilaahay bay beeniyeen xagee lagu arkay bil ramadaan qof islaam oo sooman oo salaadii tukanaya oo soonkii ku dhex jira oo waliba 10kii ugu dambeysay ku jira oo la qarxinayo oo leeyana lagu galaya xagee lagu arkay kuwan koor sidaas waxa ay muujinaysaa inaysan diinta islaamka ay bari ka yihiin oo ay gaalada xataa ka sii liitaan yuhuudda badhaanto sababtoo yuhuud waa yuhuud la yaqaan halkaas joogtaayo iyaga la iska ilaaliya laakiin midka islaamnimada kula sheeganaya oo magaca Soomaalida kula sheeganaya oo waxa sameeynaya kaasa ka xun yuhuudka runta markii laga sheego al-shaydaan baan anigu u aqaana kuwaas laakiin reer Gaalkacyoodka iyo kuwa fuliyiinta waxay yiraahdaan al-shabaab baa saas yeelay qaar baa mar walba marka yiraahdo warmaanimo kan saddeena waxay yiraahdaan war Jamaal ma ka baqay in lagu diyo war aniga yaa idili kara ma Allah wax ka sugaya aniga idili kara waa maya 120 cisho uurkooda markii ilaahay ugu khalqay oo ugu abuuray baa rabbi sheegay malag baa la soo diray ajashiisa qorbaa la yiri wuu qoray risaaqadiisa qorbaa la yiri amalkiisa qorbaa la yiri ajasheedii 120 bari baan markaan la qoray oo uurkooda ku jiray nin iga hormarin kara iyo qof iga hormarin kara ma jiro ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa ajasheedii gacanta ku jirta kuwaas inaan u leecana ilaahay baan ku dhaartay inaan wariga aqbalaynin kuwa cadaabti Allah ku fogeeyo ilaahay cadaabta ku fogeeyo ciidanka booliska Puntland taliya Muumin waxaan leeyahay ha ku niyad jabin sidaas sala u hadashay si ka si fiican baanu ka rabnaa garabkaaga taaganahay waa ku taageeraynaa inta xalaasha oo reer Puntland oo reer Gaalkacyoodka ayaa ku taageeray oo kula jira ilaahay baa kula jira waayo xaqi baad u dagaalamaysaa ilaahayna ha kugu guuleeyo qodobkaas intaasaan kaga baxaya qodobka labaad waxaan la hadlayaa reer Gaalkacyoodow Axmed Muuse Nuur wuxuu ahaa halyeeygi ugu dambeeyay ee Gaalkacyo u soo baxay ahaa waa ogtiin inta halyeey la dilay 1 2 3 4 5 laba oran kumba waa dhaafeen hadda inta waxa loo leeynayay oo aqoonyahankiin loo dilay oo siyaasiyiin loo dilay oo mutacallimkiin oo mid walba loo dilaya waxa weeye Gaalkacyo isha ha isku qabsato habaabado kadibna ha isku soo haraan inta aan wax garanayn oo qalbiga daciifka ka oo iimaanka daciifka ka oo diinta daciifka ka markaas sidaa doontaan aad ka yeeshaan wallahi baysan asxaan idin gelin midba maalin bay u imanayaan midba maalin bay meeshiisa ku dilayaan haddaydan maanta dhidhiin haddaydan maanta kicinin haddaydan maanta la dagaalamin guryihiinay ku jiraan kama ay soo dhicin ma aha bahasha gaduudan la roob la dhaco marka roobku yimaado soo dhacda ma aha waxay jooraan guryaha ayay kire ugu jiraan idinka ka kireeyay lacag baad ka gurataan yaa lacag ka qaadaysan iimaanka alle ka qaadi waxa lacag ka qaadaysan kii idin dilayay weeye kii wuxuu doonay ku sameeyay weeye kuwaas lacag ka qaata imisa Gaalkacyo 1 milyan oo qof baa ku nool war 1 milyan oo qof baa waxaan
qof gaarin ay ka adkaadeen ba kuwaasaad iska celin weydeen maxaa idiin diiday inaynu inta soo baxno dariiqada u soo baxno guri walba gallo meeshay ku jiraan ka soo saarno intaynu soo qabanno aynu sujuudda ku wada dhufanno inaynu dhagax la dhacno jannadii baad ku gelaysaan ilaahay baan ku dhaartay culimada islaamka weydiiye kuwaa qofkii dila jannadu ku gelaya intaa maxaa idiin diiday mid walba wuxuu ku oranayaa war aniga lay dilmayo haddaa 10 dhalinyaro u yeerto war 10 kiina leena waryaada war maxaynu arrintan ka yeelaa war ma ka tasana mid walba wuxuu ku oranayaa maya jamaalow adeerow yaan adiga lagu dilin anaga haddaa adigu ismiidaamisay adeer anagu ismiidaamin bay leeyahay ku leeyahay oo ma ismiidaamin baa ku dhiman adoo gurigaaga joogaa lagu imanaya gurigaaga lagu dilayaa magaalada lagu dilayaa maqaayada lagu dilayaa iskuulka lagu dilayaa caafimaadka meesha aad u aado isbitaalka lagu dilayaa meel kasta waa lagu dilayaa sidaas baad dooratay dullinimadaas aad dooratay dullinimada maanta waxay joogtaa maalintii la oran jiray yaa maali jiray bay taaganta waxba dhowran ma Allah u dhagaxay soo daa magaalada Soomaalida taasay maanta taaganta waa inaan maanta dagaalanaa waa inaan maanta guryaha ka soo baxnaa shacabka oo dhan aaway reer gaalkacyoodkii dhiranaan jiray aaway reer gaalkacyoodkii la dhigay waa in libaxsan ka tabto balaayada lagu sheegi jiray war goormaad hadhiinada noqoteen war goormaad dulligaan ay fuule ka soo baxa guryaha ka soo baxa meelaha ku raaxaysanaysan ma raaxaysanaysan wallahi baqdin baad guryaha ugu jirtaan ka soo baxa ma anigu fiiri ma anigu miyaan la mid ahayn ma waan qof bila aadan ahayn ma waan qof Allah samaysto Allah abuuray aan ahayn maxaa anigana igu wata inaan maalin walba idinka dhiiri geliyo oo qayliyo idinku aad guryaha iga daawataan maxaa idinku keenay soo baxa maxaa leeyahay waayay 100 qof oo isku xiran oo banaanka u soo baxdo oo tira dulliga doon guri walba waynu weerarayna meelaha ay ku jiraan waa weerarayna waynu qabanana waan ka adkaana ilaahay idinka rabbi baa in la jira waa bidco weeye daalimiin gaala weeye hal loo soo baxo reer gaalkacyood soo baxayaan kula talinaya ugu dambeyntii waxaan leeyahay ilaahay xaq ha u heliyo rabbi ummadan qulubteeda ha isu soo duwo ilaahay dadkan ha fahamsiyo xaq waxa uu yahay ugu dambeyntii waxaan tacsi u dirayaa saaxiibaday Axmed Muuse Nuur gudoomiyihii gobolka Mudug waxaan tacsi u dirayaa saaxiibkay Maxamed Muuse Nuur bal eega Maxamed Muuse Nuur oday shayba buu ahaa firqooyin shaqo kuma lahayn bidci ma ahayn sunno wal jamaaca buu ahaa waa la dilay wiilashii waa la dilay la socday gabadhii shalay madaxdu meesha go'ana maxay galabsatay waxa ma ay galabsan ilaahay jannada firdawsa ka waraabiyo wuu ka waraabinaya waayo ramadaan bay dhinteen waa shuhada weeye waa kuwa asxaabihii oo kale weeye waa shahiideen kuwaas doofaarku dhalay oo madaxa buuraana shalay naartii marna adduunka lagu naaray waa kii beeshku gubanayay آخرنا إسلا شل مركي أو قدك قال أو قدك ما بقى هرت تخلو كوا كاس إسلا برتي عذابك قال قفنا كلوا من قدك قف وساسا لو عذابي إلى هاي شنده كورابي الكودي أمد الرير بنتلان أمد الصومالي أنت حقك وأديتنا إلى هاي سمك إيمانك السوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.